halkani waa deegaanka Jile Marko Gandarshe ceel wareegow iyo magaalada Marko xarunta gobolka Shabeellada Hoose kuwani waa geesiyaasha mas'uuliyaasha qaranka Soomaaliyeed oo hogaaminayo abaandulaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage taliyaha qaybta 12 Abriil General Umar Dheere waxa ayna guulo waaweyn ee ka gaareen ciidanka deegaanadan laga saaray maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab taliyaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay deegaanadan laga saaray maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka waxay goob kasta ka wadaan ololo ballaaran oo lagu sifeynayo cadawga Al-Shabaab sida jubbooyinka koonfur galbeed Hirshabeelle galmudug ilaa Puntland inta waxa ka socda sifeyn aan sifeynayna ciidanka cadawga Al-Shabaab oo ka baabiinayna dalka Soomaaliyeed ee ay curyaamiyeen cabsi geliyeen shacabka Soomaaliyeed hantidooda naftooda iyo hantidoodaba waa cadow dhiig mirata cadawgaas asaga waxaan jecelnahay sanadka inta ka dhiman inaan ku soo afjari doonno hadduu Ilaahay idmo kuwani waa shacabka ku nool deegaanadan laga saaray kooxda Al-Shabaab waxa ay ku faraxsan yihiin in ay ku ildoogsadaan muuqaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo in muddo ah ay arkin iyo harsiga neecawda dawladnimo oo bilow ah isla markaana uga mahadceliyay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay uga xoreeyeen maleeshiyaadkan oo in muddo ah dhibaato ay ku qabeen وطان نك وطان وشعبك شغالي شعبك مركز إذا مغشان وحنو شغلنا شعبك وأنا لسداري كتابا صومرني إن الشعب كان أقول دجالنا إن عدو كلا دجالنا إن وح الله على وحي عن جارسيكرنا أو تاكلنا وحن ما نتقون لين إن نيجنا إن رعنان أيها كان روكاني وحن نقول صوب لما أمر كان مدحنا نقصر رئيس مدحونا أو سريع رئيس الوزراء كحية تليه حاجة إذا ما كحية أمان دولك إذا ما هذا نوطا أيها كحية waxaan balantii aan soo qaadno waxay ahayd in shacabka gacmo furan ku soo dhaweeyno cadawga kala dagaalano biya aan cabayna aan wax ka siino badarka aan wax ka siino waa shacabkiina aatiin ciidamadiina aanay saraakiishii ciidamadooda aanay waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan cadawga la dagaalano inaan galaas biya hada cabayna galaas kale idinka cabtaan waxaana aan idinka saari doono inaan idinka noo soo duceysiin inta uu socday howlgalkan ayaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab la gaarsiiyay qasaare isugu jiro dhimasho dhaawac in laga furto hub fara badan sida uu qeexayo taliyaha 12 Abriil dagaalka aad maqasheen ee ka dhacay Jilmarka waxa weeye waxa lagu dilay 16 Al-Shabaab horjooga ajnabi ah lagu dilay oo maaragtay halkaas lagu dilay marka shabaab fara badan lagu laayay halka naftigeeda dagaalkii cuslaayo ka dhacay shabaab fara badan lagu laayay maxaabiisaan ka qabanay marka oo fara badan oo Al-Shabaab hadda qaaraan ka qabanay halkan oo gudbinay marka waqti kastaba waan qabanaa waa gudbinaa anaga hadee waxay ku dhaqmayaan oo kale kuma dhaqmayno dad diin lahaanahay dad Soomaali matalaanahay xoogga dalkan nahay ma dilayno qof aan qabanay ma dilayno bilaadanimada aan ogolaanin ayaga waxa ay ku dhaqmaan kuma dhaqmi karno geesiyaasha Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ayaa dhulka xeebta wali waxa ay ka wadaan howlgalkan looga saarayo guud ahaan gobolkan iyo dhammaan dalka waxa uu u socdaa howlgalkan si qorsheysan iyadoo kooxda Al-Shabaab ay u bacbacdhig la yihiin cutubyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku fidinaya deegaano dhowr ah iyo guud ahaanba gobolkan waxa ayna kooxda Al-Shabaab ay ka sii cararayaan goobihii ay ku sugnaayeen howlgalkan intuu socday lagu dilay ajaanib ka tirsanaa maleeshiyaadkaasi kooxda Al-Shabaab ninkaas wuxuu ahaa nimankii Pakistan ka dagaalami jiray kulkii dabana Boko Haram u galay waxa la yiraahdaa Nasir Al-Jabiri dambeyntii taliyaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in ay garab istaagaan shacabka ciidanka la dagaalamaya kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab ee xalaaleystay dhiigga iyo muwaadinka Soomaaliyeed hantidiisa
waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawladda ha garab istaagaano ciidamadooda ha garab istaagaano naftooda ha huraano aan iska sifayna nin walba uu seeftaada guriga kala soo bax aan la dagaalano. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.